الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى waxaanu maanta qaadanaynaa haddii ilaha idmo casharka saddexaad ee jabtarka shanaad ee form 3 biology oo loo yaqaan ecology. casharkiisa saddexaad wuxuu noqon doonaa haddii alla idmo components of ecosystem. casharkii labaad ee casharkan ka horeeyay waxaanu ku soo baranay flow of energy, sida energy uu qulqulo ama energy inuu ka yimaado from sun, cadceedda inuu energy ka yimaado dan uu soo galo wax la yiraahdo producers oo plants ka qoos soo saarayaasha ama qood sameeyaasha, dabeedna uu gudbo consumers levelskooda kala duwan oo sii maro levelka ugu horeeya consumerka uu sii maro waa herbivores, dan wuxuu sii maraa wax loo yaqaan consumers gaar ahaan carnivores iyo kuwa ay u soo gudbay waayo wuxuu ku sii damayaa tom carnivores kuwa hilib cunayaasha. waxaan kaloo ku soo baranay ecological parameters. Today waxaan eegaynaa haddii la idmo components of ecosystem, wax la yiraahdo habdhis deegaanka waxa uu ka kooban yahay waxa uu yahay objectives ka learning outcomes ka casharkan ay ku qaadan doonaa haddii alla idmo waxa ka mid ah discuss the component of ecosystem and interaction between community iyo interaction ka dhaxeeyo community wax yahay beesha waxa ka dhaxeeyo way firstly waxaan eegaynaa ecology. Ecology simply was scientific study of interaction between organisms and their environment. Ecology waxa lagu qeexaa waa hab ama baqayla ka mid ah biology-ga taasoo la xiriirta in la barto oo la daraaseeyo waxa la yiraahdo interactions isdhexgalka u dhaxeeya ama relationship-ka u dhaxeeya noolayaasha iyo deegaankooda. Interaction between organisms and their environment iyo deegaanka ay ku nool yihiin gudaha. Interaction falgalada u dhaxeeya iyo noolayaasha dhexdooda xitaa interaction u dhaxeeya. Way waxa leeyahay wax la environment. Maxaa environment loo yaqaan? Environment means everything surrounding an organism. wax kasta oo noolaha ku hareeraysan that could be possibly influence it ayna suuragal tahay inuu saameeyo noolaha yaa waxa loo yaqaanaa waa wax leeyahay magaranaysa wixii marka noolaha saameeyo guud ahaan yaa environment loo oranayo. Everything affected organism during its lifetime, wax kasta oo noolaha saameynaya inta uu ku dhex jiro noloshiisa yaa environment loo yaqaan. way component of environment marka environment wuxuu ka kooban yahay ama made up of two factors. laba factor buu ka kooban yahay. labada factor factorka koowaad waxa la yiraahdaa waa biotic factors. erga biotic means waa living factor oo wixii living things wixii noolaha all living organisms inhabiting the earth, wixii living organism oo meesha ku wada nool oo dhan dhulka ku wada nool oo dhan waxa la yiraahdaa biotic, ama plant ha noqdo ama animal ha noqdo ama bacteria ha noqdo ama fungi ha noqdo ama برتسوه هنقض all living organisms وحلو لها biotic بالوراني environment factor وكاس واي waxa kala jira abiotic هذا soo maxay waa diidu abiotic waa diid sida hore waxaan u soo baray asexual asymmetry acolymed هذا soo dhawa maxay waa diid marka simple waa maxay waa non living factors wixii aan noolayn ayay ka hadlaysaa abiotic. Non-living part of the environment wixii aan noolayn oo deegaanka sida deegaanka maxaa laga helay heerkulkii, ciidii, ilayskii, qoyaankii, hawadii, maxaa la yiraahdaa dabayshii, waxyaalaha noocaas oo dhan dhagixii, waxaas oo dhan waxa loo yaqaanaa abiotic factors. waa non-living part of the environment yaa loo yaqaanaa abiotic simply. waxa marka halkaan aan ku arkaynaa oo levelkan ama inoo ka muuqda waxa loo yaqaan organizational levels levelada oo maraan noolayaasha guud ahaan. Organizational level marka la leenahay simply waa biosphere baa ugu weyn, the largest organizational level. waxa ku xiga ecosystem oo ah simply deegaan habdeegaanka ama habdhis deegaanka waxa loo community oo beeshiya ayaa ku xigta population oo ah magaranaysa bulshada ayaa ku xigta dan organism oo noolaha gaar ahaan loo soo gaaray.
marka noole maxay yihiin erayadata biosphere muxuu yahay ecosystem waa maxay community waa maxay population waa maxay organism waa maxay intaasina insha Allah taala isla fiirinaynaa haddii ilaahay idmo waxaan ka bilaabaynaa midka ugu hooseeya organism simply waxaa la oran karayaa waa any unicellular or multicellular form exhibiting all characteristics of life waxaan leenahay wixii unicellular oo leh hal unug waxa hal unug la markaa leenahay unicellular leenahay maybe waxaa ka mid ah maxay bacteria waa unicellular waxa kale oo soo galaya ameba waa unicellular yeastiga organisms badan baa soo galaya euclina oo iyana ka mid ah algayga yaa soo galaysa marka waa maxay waxa loo yaqaan multicellular organisms waxa la unicellular marka leenahay uni means waa one cellularna waa cell one cell wixii hal unug leh yaa waxa loo yaqaanaa unicellular organisms ka magalaysa halka unug leh okay multicellular marka aan eegno waxa la waa organisms ka leh many cells multi means waa many halka cellularna ay tahay cellka ay tahay simba marka organisms kana waxa ka badan hal unug waxa ka mid ah maxay balantiska ka mid ah animalska ka mid ah inagu aynu ka mid nahay fangayga qaybo badan oo ka mid ah ayaa ka mid ah bartuwa qaybaha ka mid ah marka waa maxay waxa la yiraahdaa multicellular organisms marka organism marka lana waa noole ama hal unugyo badan leh kaasoo leh exhibiting all characteristics of life dhammaan sifooyinkii noolaha lagu yaqaanay sida tarankii feedingkii movementigii respondingii Allahumma salli ala Muhammad growth and development dhammaan characteristics lagu yaqaano astaamaha waxa nool waa inuu lahaado organism marka laga hadlo ama an individual baan simple then markaan ka gudubno hadda sawirka halka aan ku arato organism baa kaaga muuqda organism inagu waxaan organism simple population ku muxuu yahay population marka la leeyahay simple waxa la leeyahay organisms ka isku species ka hal goob ku wada nool yaa loo yaqaanaa population group of organisms of one species waa koox noolayaal oo ah one species hal sinji guud hal in living in a same place kuwaasoo ku wada nool hal goob at the same time that interbreed kuwaasoo hal goob ku wada nool haddana sameeya interbreed taran dhexdooda waxay sameeyaan interbreeding ayay sameeyaan yani waa population marka leenahay wuxuu ka kooban yahay oo kaliya population marka leenahay simple waxay ka kooban tahay oo kaliya waxa loo yaqaano one species buu ka kooban one species hal species marka ka soo qaadno bini'aadamku waa population human being population marka ka soo qaadno goats camelku waa gaar goatsku waa gaar sheepsku waa gaar waxa soo waa idaha species gaar ah geelu waa species gaar ah marka species waxa population waxa la yiraahdaa organismska isku speciesna dabcan waxa la yiraahdaa waa basic unit of classification meesha ugu hooseysa ablaableynta xayawaanka marka la ablaableeynayo marka speciesku waa noolayaal iyagu magaranaysa sameeya interbreeding simple ama population kan dhan produce fertile offspring waxay soo saaraan fertile offspring ayay soo saarayaan sidoo kale waxay sameeyaan compete with each other for resource waxay ku tartamaan compete with each other waxay tartan ugu sameeyaan oo ku tartamaan for resource khayraadka organisms ka isku population-ka wax khayraadka ku tartama cunada meat galmada hoyga waxaasoo dhan waxay ku sameeyaan tartan bini'aadamku hadda adduunka muxuu isku haystaa wadamaha la isku haystaa xayawaan kasta oo isku jinsi ah ama isku population ah waxay isku haystaan ama cunto ama mates ama shelter iyo wixii la mid ah adugu waxyaalaha noolayaasha isku dilaan ayay isku haystaan resource waxa khayraada ama territory space ka magaranaysa dhulka inta waa isku qabsadaan hadda halkan waxa ku artaa dameer farow dhammaan maxay yihiin waa same species waxaad kaloo aragtaa
libaaxyaha ayana aragtaan dhammaan yana maxay yihiin waa same species way libaaxyaduna simple community markaan eegno iyadu waa bulsho community waxay ka kooban tahay more than one species wax ka badan hal species bay ka kooban tahay hal species wax ka badan all organisms belong in different species dhammaan noolayaasha ka kala tirsan species kala duwan that interact in the same habitat kuwaasoo hal deegaan ku wada nool macnaheedu waa hal species oo kale hal deegaan ku wada nool baa soo ma population laakiin community waa maxay waa wax ka badan hal magaranaysa species two or more species ama dhammaan organisms ka different species ka wada kooban oo ku wada nool hal goob yaa loo yaqaan community that interact in the same habitat hal deegaan waa ku wada nool way taas community loo oranay imika sawirkan waxa ku aragtaa libaaxyada baa ka muuqda dadka baa ka muuqda ay baa ka muuqata dhir baa ka muuqata loo baa ku jira gari baa ku jira bakteeriyada baa xitaa ifan ku jira waxyaalaha kalluunka iyo waxyaalaha cayayaanka iyo dhammaan waa ku aragtaan laakiin waxa noolina sometimes waa ka dhex muuqdaan waxaas loo baahan inta nool baa laga hadlayaa fur waxa silsilada is cunaysa oo inta nool ah wixii living part wixii nool ayaa waxa la yiraahdaa living part of environment yaa waxa loo yaqaan waa maxay community waa living part wixii nool oo meesha ku wada nool laakiin living part waxay ku wada nool yihiin life in same area hal goob bay ku wada nool yihiin waxay ku wada nool yihiin life in the same area hal goob bay ku wada nool yihiin simba kuwaas baa la oranaya community ama bulsho hadda markaan ka soo qaadno xaafad kamid ah wadanka ama misalan Garowe ka soo qaad Garowe kale dadka ku nool xoolaha kala duwan oo ku nool dhirta waxa ku nool oo guud ahaan maxay noqonayaan waa community waxa noolayaasha ku nool oo dhan waa community laakiin population marka la yiraahdo waxa laga hadlayaa human population goat population camel population like that waxay marka community waxay ka kooban tahay different populations ama different species kuwaasoo ku wada nool in same area yaa la oranay wadan waxaan eegaynaa ecosystem habdhis deegaanka wax la yiraahdo habdhis deegaan wuxuu ka kooban yahay community plus non-living part of the environment ecosystem markaan leenahay wuxuu ka kooban yahay simply consist of living plus non-living part of the environment wixii nool waxa nooleeno ama waxa oran karaa waa maxay community plus non-living part of the environment wixii non-living iyo community marka la isku daro labada marka la isku daro community plus non-living labada un bay ka kooban simple labada marka la isku daro yaa waxa la yiraahdaa ecosystem marka ecosystem waa habdhis deegaan marka leenahay dabcan hadda ka soo qaado bounds ama river webiga ka soo qaado webiga waxa ku wada nool kalluunki baa laga helayaa oo nool waxa laga helayaa rahi baa ku jira maybe libaaxyadii baa ku jira libaaxbadeedka waxaan u naqaan dhirti baa ku jira badda gunteeda ka baxaysay xayawaano kala duwan baa ku jira waxa ku jira hadana waxa intaas hore aan sheegnay oo fish frog lion plants waa living laakiin markaan soo qaadano biyo hawo ice and light maxaa la yiraahdaa soil salt waxa la yiraahdo gases dhammaan maxay noqonayaan waxa soo dhan waxa loo yaqaanaa simply waa non-living part marka labadaas marka la isku daro oo riverka hadda marka inta ka soo qaadno simply waa ecosystem habdhis deegaan waxa wada jira noolayaasha iyo ma noolayaasha baa meesha ku wada nool marka waxaan leenahay waa population in a community and a biotic factor
population in a community bulshadii guud ahaan ama maxaa la yiraahdaa beenihii oo dhan oo lagu daraayo abiotic factors waxa abiotic factors oo garanaysa ma noolayaasha with which they react kuwaas waa maxay interact isdhexgalaya isdhexgal wada sameynaya مثلا هذا مرين بدأ كان سوقا meesha biyaha leh ama terrestrialka meesha bariga oo kale dhul gaar ah markaan soo qaadno de maxaa ku wada nool bad markaan soo qaadno dhammaan waxa ku nool waa maxay wixii noolayaalaha wixii noolaana waa laga helaya biyihii hawadii ciidii dhagaxii dhulkana waa saas oo kale xayawaano kala duwan baa jooga dhirtii baa joogta waxaan yiraahdaa noolayaal kala duwan baa jooga oo dhirta ka mid tahay xayawaanada kala duwan ka mid yihiin iyo wixii noolaha baa laga helay hadda halkan waxa aragtaa waa bad kalluunadii nagax ma garanaysaa kalluunku gali jiray biyihii kullu waa ku muuqdaan xagga waxaad aragtaa waa berry terrestrial waa ecosystem waxa aragtaa dhir waxa aragtaa maxaa la yiraahdaa qararkii iyo biyihii iyo waxaas ayana waa ku muuqdaan symbol marka waa maxay ecosystem waxa la yiraahdaa symbol waa habdhisdegaan wuxuu ka kooban yahay noolayaasha iyo noolayaasha ayaa ka wada kooban way waxaan tagnaa wax la biosphere bio iyo sphere waa laba eray meesha la socda bio means waa wixii nool baa laga hadlaa waa live halka aynu ka hadlay sphere symbol waxa loo yaqaan art dhulka loo yaqaan marka waxa la waa qayb kamid ah dhulka oo ay ka jidho nolol life supporting portion of the earth composition of air land fresh water and salty water waa life supporting meel nolosha taageeraysa ama nolol ka jidho oo kamid ah portion of the earth qayb dhulka kamid ah composition of taasoo ka kooban hawo ciid dhul hawo aan dhahay dhul biyaha ee macaan iyo biyo cusba leh taas waxa loo yaqaanaa symbol biosphere ama waxa that portion of the earth where life exists waa qayb dhulka kamid ah oo ay ka jidho nolol biosphere yaa la yiraahdaa symbol waxaan galaynaa marka waxa la yiraahdo habitat waxa la yiraahdo habitat waa place where organisms in which it is the best adapted to life waa meesha ugu wanaagsan ee nolol ku noolaan karo noloshiisa uu la qabsado baa habitat waa deegaan ruuxeed waa goob nolol ku noolaan karo waa habitat waa place where organisms get shelter waa meel uu ka helayo hoy food cunto iyo meat nolol kale oo nolosha la wadaagan oo jamaaca la sameeyay marka habitatku waa meel nolol cunadiisii hawadiisii biyihiisii nolol kale oo la wadaagan nolosha kullu ka helayo waayahay ecological interaction between organisms isdhexgalka ecological ahaan ee u dhaxeeya noolayaasha ayaan eegin waxaan ugu hormarinaa competition noolayaasha waxay sameeyaan competition bashar markaan ka hadlayno biotic factor markaan ka hadlayno waxay sameeyaan competition waxa nool dhexdooda maxay ka sameeyaan tartan bay sameeyaan marka when two organisms of the same or different species attempt to use ecological resources in the same place at the same time competition ku wuxuu yimaadaa marka laba noole oo specieskooda isku mid yahay isku nooca isku jinsiga ama jinsigooda kala duwan yahay attempt to use ay isku dayaan inay wadaagaan ecological resources sida same place hal goob inay ku wada noolaadaan hal waqti ku wada noolaadaan hal goob marka laba qaybood baa insha Allah loo qaybin doonaa intayna qayb waxyaalaha lagu tartamayo resource-ga waxa kamid ah cuntada biyaha hoyga ayaa kamid ah halkan hadda waxaan ku aragtaa libaax iyo waraabayaal islaynaya ama durwaayo maxaa la isku leynayaan dabcan waxa jira competition baa ka dhex jira inay cunaan beenta rabaan dabcan waxa weeyaan competition baa ka dhex jira waxbay isku leynayaan marka waxa weeye competition can be either wuxuu noqon karaa interspecific or interspecific or interspecific wax la interspecific wax la yiraahdaa waa interspecific qaybta la yiraahdaa waa wuxuu dhacaa competition kaas oo ama ka dhaxeeya organisms of the same species kuwa species kooda isku mid yahay sida bini aadamka oo kale waxa ka dhacaa taran waxa ka dhacaa tartan waxay ku tartamaan waxyaalo badan waxaan maqashaan dhul baa la isku leeyahay Soomaa waxay isku leeyahay territory oo kale space marka waxa soo kale waa maxay
maxay ku timi waa bini'aadanka ayaa dhexdooda isku haya ma garanaysaa xagga deegaanka ama isku haya khayraadkan ceel shidaal baa isku qabsaday bad baa la isku qabsaday waxyaalahaas oo kale soo ma taado xayawaanada isku jinsiga waxaad arkaysaa laba xayawaan oo isku jinsiga oo islaynaya maxay isku leeyahay dabcan waxba isku riyaha hadda cunno u dhigno riyaha magaalada kale hadda cunnada hambada ama raashinka guryaha laga soo loo dhigo waxa arkaysaa riyaha isku leeyahay maxay isu dinayaan waa de waxa weeyaan waa competition bal waxa loo yaqaan competition ka noocaas ah interspecific bal halka hadda tusaalahaasna waxa kamid ah libodiska haramcadada waxay sameeyaan competition dhexdooda ayagoo ku tartamaya establish territories meesha deegaanka ma garanaysaa territoryga oo midka kale uu soo ogolaan inuu territoryga soo galo sidoo kale interspecific competition waa midka ka dhex jira organismska different specieska kuwa specieska ma garanaysaa kala duwan tusaalahan weedka waxa la waa marka la beero dalaga marka la beero oo dalagu uu baxo waxa jira dhir yar yar oo dhirta la qaybsata nafaqada oo aad u yar yar oo qoryaha beeraleyda way ka jiraan dhirtaas waxa loo yaqaan weed waxay la qaybsataan nafaqada waxay la qaybsadaan dalaga crop miraha la beeray crop plants for water light and also nutrients intaas la qaybsadaan marka maxaa la sameeyaa waxa la yiraahdaa beeraha waxa lagu sameeyaa baaqbaaq waa la baaqbaaqa waa laga jaraa maxaa looga jarayaa because wuxuu kula geedkii aad meesha ka beeratay oo dalagii qudaartii ama wixii aad beeratay si fiican u bixi maayo because of weediska ayaa nafaqada la wadaagaya therefore waa in laga jaro meesha oo weediska meesha laga saaro marka weediska iyo plantsku maxay kala yihiin simply waa different species wallan radiationka waa ugaars organisms one organism captures and feed on another organism midna waa la soo qabanaya kan kalena waa la quudanaya marka laba loo qabay predator waa kan wax dilaya one kan wax ugaarsanaya predator waa ugaarsade breeguna waa kii foodka hayo la cunayo mesela halkan waxa ku aragtaa sac iyo waraamayal sac kan hadda waxa sac muxuu yahay waa breeg waa la ugaarsade looduna maxay tahay aan dibida baalkan waraamayashuna maxay yihiin libaaxyaduna maxay yihiin waa predators waa ugaarsadayaal siman ku ugaarsanayo cunayo way symbiosis bayana jira waa in a relationship which two species live closely together xiriirka ka dhaxaya ama magalaysa laba species oo xiriirkoodu isu dhow xiriir dhow wada leh simply waxa loo qaybiyaa saddex qaybood mutualism xiriirka dhow ma aha in isku nooc ahaadaan oo kala duwanaan mutualism waa kuwa kala faa'iideysanaya kuwa commensalism waa kuwa magalaysa mid baa faa'iideysanaya kan kalena waa waxa weeyaan waa wada noolaasho commensalism parasitism waa dulank oo mid baa haamina midna haamid ma okay mutualismka kan magalaysa kala faa'iideysiga oo labadii waa kala both species benefit win مثلا هذا ذاك سواد إنك بني آدم بناي بني آدم كعلاشنا وح كنا البكتيريا الذي يأكل بكتيريا ذا علاشنا كنا المحيط سمسا تعجش كأنه كغير غلط يعني عندنا نودي في شدة يضرب فود بين كهشة بس في دمر كم حي وين أنا واقول شيء أنا واقول شيء كلا فائدة ويان وكلا فائدة إنسكتي يفلاور عيان كي هذا يوح سوق هذا جات كه وحا سوق تاع شنو yana cunna ka helaysa wuxuu ka helay booladhesh waxa aragtaa sac iyo yana waxa tahay shimbiro sac waxa laga gurayaa shilinta yana cunna ka helaysa simple commensalism waa simply waa kala faa'iideysi mid baa faa'iideysanay ama wada noolaasho aan dheh mid baa ma garanaysaa midka kale ka faa'iideysanay kan kalena waa maxay waxba asaga haamid ma one member of the association benefit mid baa faa'iidaya and other neither helped or harmed waxana la yeeli maayo waxana ma garanaysaa la caawin maayo faa'iidana la tar maayo مثلا شمبروه هذا وارثة بول كا جيت كم واحد وارثة بول بالغدس بريدس بين نتس تريس شمبروه جيت كم واحد كسر يستعمل بول بكسر يستعمل جيت كم واحد وحمد جاري لكن شمبرته معاه حي قولي بكسر يستفيد فائدة واحد كقدو بطي بريديترس عدو قادي بكقدو بطي مركب فائدة وين بالك كجدا برزتيزم كا واحد اللي هو دولينكاس أما واحد أورجانيزم بكود النول أما كود النول هذا inside أو outside one organism life on
or inside of another organism organismka lagu dulnool yahay ama lagu hoos nool yahay gudihiisa laga jiray waxa loo yaqaan host marka waa maxay harms it wuuna haamgaroonaya waxyeello gaaraysa parasite obtains all or part of its nutritional needs from the host dhammaan cuntadeeda ama qayb ka mid ah nutritionka waxay ka heshaa hostiga waa noolaha la cunayo kan wax cunayana waa parasite marka waa maxay midna waa win midna waa loss mid waa guulaysanaya misana shilinta hadda xoolaha cunta shilintu waa maxay waa win way guulaysanaysaa neefkuna waa maxay shilintu cuntay waa loss khasaare goos waa u dhimanaya shilinta nafaqada iyo dhiigga iyo wixii fiicnaa ka jiraa mosquito bites hadda kanaacada ka mid ah waxay qaniintaa ama biting in human hadda halkan waxa artaa kanaaca qaniinaysa xagee qof qaniinaysa marka taana waxa loo yaqaanaa parasitism insha Allah ta'ala 10keeni saddexaad ee ecology-ga halka ayaynu ku joojinayna. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.